السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود دمانتي وسلامتي ملك سعدون كجوكتان. هل كان قد داونيسان وشانالك سومال انتربرونير قفك إذن الله هذينا وويلكيني وولالكين وصاحبكين عبدول الدياس. So guys, welcome back to another video. أصحابتي نلتشوكتي أدي أدبا وما سنتين. Welcome back to another video. أصحابتك كلا ونقصوا بيرتينا channelك وchannelكيني سودوا هذا هنا وحياة ربنا channelك في عندنا برشين دونا إن شاء الله دولا هدي. أوكي. sidaad ba aniga iga barateen badana waxa soo geliya vlogyada ama vlogger baan aad u jeclaa inaan fiidiyoda vlogga soo duubo sida maxay ahayd fiidiyoda channelka ku aragteen dadkii hore ugu jirayba dadka cusubna insha Allah ay arki doonaan intaanan caaw barnaamijka idin wada u gudbin waxaan rabaa inaan tijaabiyo microphone-kan waxa la yiraahdaa sida halka ka aragtaan Rode wireless microphone waa microphone aad u fiican oo codkiisana maxay aad u fiican yahay sidoo kale dadka YouTube-ka beginner-kan aad u fiican yahay inay soo gataan oo kale waa microphone ma wato wax fiilo ah just ama halkaas gashanaysa ama waxa dhiganaysa maxay ahayd meel ku dhow oo kale waa wireless oo kale marka dadka YouTube-ka beginner-ka aad u fiican yahay lacagta la gadana almost waa $250-300 meelahaas marka cidii haysata way haysataa inay soo iibsato waan ku bogaadin lahaa cidaan haysana insha Allah markay helaan inay soo iibsadaan baan u sheegi lahaa wali waxaan u sheegayaa dadka YouTube-ka markay ku cusub yihiin ama YouTube-ka ay rabaan inay heer ka gaaraan oo kale Rode wireless microphone is a very important guys aad buu muhiim u yahay marka soo gata inta hadaan halka uga gudbo hadaan u soo laabto barnaamijka caawa ka hadli doono waxa weeye laba qaab sida kor ku soo aragteen laba qaab oo maxay ahayd YouTube-ka fees-ka hoos u dhiga ama fees-ka aad u yareeya okay intaan barnaamijka hadaan sii gudgalin Instagram-ka halka ma soo dhigi doona Instagram-ka active aan ka ahay badana video ama maxay waxyaabo fara badan oo soo dhiga Instagram-ka active aan ka ahay oo badana maxay halkaas aan u badnahay marka iyadana soo Instagram-ka ina soo booqda insha Allah waxaan rajayn doonaa inaad maxay waxyaabo fara badan ka heli doontaan isagana okay hadaan u soo gudbo barnaamijka ama labada qaab oo views-ka hoos u dhiga kan koowaad wuxuu noqon karaa wax aad basiid u ah oo Soomaalida YouTube-ka ku cusub oo kale ama dadka YouTube-ka family-ga ama asxaabta fara badan leh oo kale ku xiran tahay taageeraha fara badan leh aysan dareemi karin okay muxuu yahay waxa weey wax la yiraahdo oo mid koowaad emoji dadka wax badan ama dadkii yaqaan dadkan aqoonna halkan soo dhigi doona emoji waxa weeye inaad soo dhigtid waxyaabo qosol oo kala sida kan oo kala ah iyo inaad faraxsan tahay oo kale sida kan oo kala ah iyo sidoo kale inaad cool ama dareemisid kan oo kiyalaha qabo kala ama mid gacmaha indhaha saaraya oo kale oo in maxay ahayd surprise ah oo tahay ama ceeb oo kale midka kan iga dhigan tahay waxba yaan hadal ku daalin emoji waxa la yiraahdaa kuwa halkan aan soo dhigi doono iyagoo dhameystiran emojigaas aad bay u isticmaalaan Soomaalida YouTube-ka ama ku xiran ama maxay ahayd laftirkooda markii cid wax qoreen marka emojigaas waxa la ogaaday in uu views-ka hoos u dhigo ama already views uu istaajiyo uu cut ku sameeyo ama uu jaro ama uu istaajiyo views-ka marka maalmaha dambe waxaad ogtihiin in Soomaalida YouTuberada ah ama kuwa cusub ama kuwa maxay YouTuberada waaweyn oo kale inay ka cabanayaan arintaas marka emojiga aad buu u sababaa in view hoos u dhigo emojigana joojiya waliba gaar ahaan asxaabta ku xiran channelkayga waxaan u sheegayaa fadlan billahi alayhi waxa sameeysan commentiga hadda videogan aan soo dhigi doono iyo videoda dambaba inaad emojiga aad joojisaan oo in soo qoray dad badan oo waxa jira commentiga wax fiican ku soo qora qoraal dib ma laha doesn't matter qoraal waa soo qori kartaa waana soo dhigi kartaa laakiin emojiga oo kuwa hadda halkan aan ku qoray oo kala mar labaad ama halkan aan soo dhigi doono kala hortiina maxay joojiya fadlan videoda dambe iyo videogan hadda idin la hadlay aan soo post garan doono insha Allah isagana ka ilaaliya soo dhigana okay talabaad maxay noqon kartaa laba mid oo saaran waa mid koowaad inuu qofka Gmail fara badan oo sameesto uu Gmail-ada faraha badan oo ugu daawado oo kale dad kale ama isaga isugu daawado oo kale YouTube-ka policy uu leeyahay guideline-ka ama dadka YouTube-ka u qaabilsan waxyaabahaas dhan way dareemayaan marka YouTuberada ay Gmail-ka faraha badan joojiyaan aniga just laba Gmail baa isticmaalaa midna waa privacy uu yahay oo documentiyashada iyo videoda iyo sawirada iyo waxyaabo privacy-ga ugu jira kalabaadna waa midka YouTube-ka Somali Entrepreneur aan ku isticmaalo just labada Gmail baan leeyahay so marka waxaan rajayn doonaa inaad Gmail-ada faraha badan iska dhaafi doontaan arinta kale waxa weeye tusaale ahaan kala dad badan baa waxa u yaala xaafadaha dhalooyin waaweyn oo kale oo dhalooyinkan
smartka ah oo waaweyn dhalooyinkaas oo YouTube lagu daawado kuwaasna YouTube-ka viewskiisa hoos bay u dhigayaan marka guys ka feejignaada labadaas mid waa emojiga iyo tan labaad oo ah maxay ahayd tan labaad oo ah gmailada faraha badan iyo midan kale oo isa saaran oo ah maxay ahayd inaad u daawataan dhalooyinka oo kale marka qofka waxa fiican inaad gmail saxa oo aad uga daawataan waliba hadda ayaamahan dambe oo kale YouTube ku recognize gareeyay ama uu aqoonsaday in gmailada u furan YouTube-ka loo fasax karo in viewska qofka uu kor u kobci karo ama kor u kici karo okay sidoo kale labadaas barnaamij baan ka hadlayay waxaan rajayn doonaa inaad emojiga joojin doontaan ama aniga aan ahaado ama cid kale YouTube ha ahaadaan totally emojiga waxa isku raacay in ay hoos u dhigaan viewska ama ay joojiyaan asxaabta hadda kusoo biiraysa videoga oo daawanaysa emojiga hadda mar labaad idin sheego waa kuwan garal ahaada asxaabta intii taqaana waa taqaanaan laakiin intaan aqoon emoji kuwana la yiraahdaa halkan soo dhigi doono okay marka tan labaad oo ah gmailada faraha badan iyadana aad bay u curiyaan mise markuu gmailka ama cusub yahay hadda youtuberada waaweyn oo kale taas dhibaato kuma hayso laakiin youtuberada yarar oo kale iyadana aad bay ugu daran tahay oo qofka markuu YouTube ku cusub yahay uu maxay ahayd arimahaas ama labada qaab ay u isticmaalaan dadka taageerayaashiisa ama ku xiran aad buu viewskiisa hoos ugu dhacaya marka waxaan rajayn doonaa inaad maxay ahayd aad joojin doontaan labadaas oo maxay ahayd waliba asxaabta igu xiran iyo asxaabta kale oo markaas ama daawan doonta ama asxaabteeda hadday u sheergarayaan oo kale oo ay daawadaan videogan oo kale marka muhiimadu waa labadaas videoda hadda noocan oo kale ah badana anigu uma badni vlogan badana soo dhigaa saanba hore idinku sheegay videogana hadda wuxuu marayaa almost 7 minutes laba daqiiqo dhiban waxaan rabaa inaan gaarsiiyo ilaa 9 minutes meelahaas oo kale okay marka labadaas baa very important ah oo fiiska hoos u dhiga marka fadlan Soomaali iyo asxaabta ugu xiranba ka feejignaada sidoo kale halkan waxaan soo dhigi doonaa Instagram-ka sidoo kale Instagram-ka iga soo follow gareeya active ba ka ahay badana halkaasna badana Instagram-ka aad baan active uga ahay Facebook iyo waxaas iyaga waa leeyahay laakiin iyaga aad uga badni laakiin aad waxaan u isticmaalaa Instagram-ka aad baan ugu badnahay oo waxaan ahay fanboy oo Instagram ah aad baan Instagram-ka u jooga marka asxaabta waxaan idin leeyahay labadaas ba ka feejignaada in haddii aad doonaysaan inuu viewga kor u kaco ama u kobco in aad emoji aad isticmaashaan oo aad commentiga ugu soo qortaan qofka marka aad taageersantiin ama YouTube-kiisa ku xirantiin ama in aad gmail fara badan aad samaysataan oo qofka aad ugu daawataan kolley arinta gmail fara badan dad fara badan baa jira oo arinta sameeya waxaan leeyahay ka joogsada mar labaad iyo mar saddexaadba marka videoga mar inuu dheeraado hadda almost 8 daqiiqo wax yar baa ka dhiman marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen asxaabta meel walba aad joogtaan sidoo kale waxaan leeyahay asxaabta cusub nagu soo dhawaada channelka oo channelkiini subscribe-ka noo saara like-tana sidoo kale channelka damar uu like helo waa damar uu popular noqdo aad loo daawado marka waxaan idin rajeynayaa asxaabta in aad ka heli doontaan videogan inta video kala mid kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh peace and love bye bye guys